الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي سقالية طبنات iyo kitaabkeennii addaa wadawaa lilimaam ibnulqayim raximahullah. Weli waxaan ku jirnaa qeybtii cuquubaadka ka dhasha macaasida. Waxaa ka mid a cuquubada macsiyada ka dhalata inay macsiyadu keenayso alqatiica, addoonka iyo rabbi inay kala go-aan. Haddii marka qatiicadaasi ay dhacdo iyo kala go-aas uu dhaco, waxaa qofka ka go-aya asbaabul khayr, khayrka iyo asbaabtiisii oo dhanba ruuxa ka go-aysa. Waxaana la xidhiidhaya qofka asbaabta sharta ayaa la xidhiidhaysa. Haddaba fa ayu falaax, liibaantee ama rajadee ama noloshee yuu helayaa qof ay ka go-day asbaabtii khayrka oo dhan, dayib, oo uu go-ay wixii isaga iyo rabbi u dhexeeyey, oo alla subxaanahu watacaala waayay isagoo oon ka kaaftoomaynin darfatu cayn, hal ilbiriqsina adoon ka kaaftoomaynin, maca daalika alla ay kaa go-day gargaarkiisii uu kaa go-ay, oo ay la xidhiidhay asbaabtii sharku ay la xidhiidhay, oo uu qofka weliba la xidhiidhay acdaa caduwin lah, yacni cadowgii ugu weynaa ayaa qofka la xidhiidhay oo shaytaan. Wuxuu shaytaanka ayaa marka weli u noqon oo gacanta ku dhigaya. Waxaa ka tegaya rabbi subxaanahu watacaala wilaayadiisii iyo gargaarkiisii iyo nasrigiisiina wuu ka tegayaa, meeshuu ka baxayaa. dayib, naf haddaba inqitaacaasi ku dhacay oo ilaahay asbaabtii wanaagsanayd waayey, itisaal iyo xidhiidhna asbaabtii sharta iyo shaytaan la sameeyey, ma dareemi kartaa anwaacda qeybaha aalaam, xanuunka iyo cadaabka iyo qeybaha qofkaas soo wajahaya. Dadkii salafka qaarkood baa waxay odhan jireen, addoonku wuxuu hor yaalaa rabbi subxaanahu watacaala hortiisa iyo shaytaanka haddana hortiisa. Haddii marka uu ka jeedsado allah, waxaa tawaliyaya oo gacanta ku dhigaya shaytaanka ayaa gacanta ku dhigaya. Haddii allah uu weli u noqdo oo rabbi subxaanahu watacaala gargaarkiisa iyo cawnkiisa siiyana, shaytaanku ma awoodi karo. faa'iido ee runtii ayay soo xusuusin arrintan uu sheekh ibnu cuthaymiin raximahullah, kelimad waxaa jirta dadku ay aada u adeegsadaan oo ay yidhaahdaan allaa yakhaliik markii dadku ayse salaamayaan, gaar ahaan dadka carabtiyaba isku yidhaahda allaa yakhaliik, allaa yakhaliik, yani kelimaad badan oo carabi ah baa la tiriyaa. kelimadaasaa ku jirta allaa yakhaliik. Marka sheekh ibnu cuthaymiin raximahullah kelimadaas baa mar uu baraarujiyey, allaa yakhaliika, wuxuu yihi fain khallaanii faman yatawallaanii, in khallaanii rabbii, haddii rabbi, marka kelimadu allaa yakhaliika markaad qofka ku leedahay waa adigoo dhahaya allaha kaa tago, allaha kaa tago, waa kaa jeedsado. Marka wuxuu yihi fain khallaanii rabbi, hadduu rabbi iga tago, faman yatawallaanii, yaa weli ii noqonayo gacanta igu dhigaya. Ma shaytaan baa qofka marka waa kelimad u baahan in la saxo oo aan la adeegsanin. Haddaba waxa la yidhaahdo kelimaadka iyo khayrka iyo xiriirkiisu waxay noqonayaan qofka weli allah baa u noqon asbaabta khayrka hadduu helo. Haddii asbaabta sharta uu qofka noqoto inay la xidhiidhana, shaytaan baa gacanta ku dhigaya, ciyaadan billah. ilaahi subxaanahu watacaala inaga badbaadiyo, rabbina hayna xifdiyo. wajazaakum allahu khayr wbaaraka allahu fiikum. asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.